Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkii hore waxaynu ku soo aragnay journal entry. Casharkanna waxaynu ku diyaarin doonaa main lecture-ka inaga oo isku xidhayna casharkii hore iyo kan cusub. Main lecture-ka waxa lagu diyaariyaa T-account. T-account-ka waxa lagu soo ururiyaa account-nadii journal-ka ku jiray, iyadoo account kastaba loo samaynayo T-account u gaar ah. Haddaba dib aynu ugu laabanno journal entry-geenii hore si aynu uga shaqeyno main lecture-keenan imika. Waxaynu ku aragnaa debitka oo inoo yaalo cash at bank oo asset ah $50,000. Dhinaca kalena credit-ka waxa inoo yaala capital oo $50,000. Bal intaa aynu geyno legend-keegii. Waxaynu samaysan doonaa laba account oo kala ah cash at bank. Cash at bank waxa lagu diyaarin doonaa statement of financial position-ka inagoo soo gaabsan doonaa SFP. Account-ka xaggiisa sare waxaan dhigi doonaa debit and credit. Account-ka kale ee aynu samayn doonaana waa capital. Capital-ka waxa lagu diyaariyaa statement of financial position-ka oo loo soo gaabiyo SFP. Xagga sarena waxaan dhigi doonaa debit and credit. Dhinac kasta waxa wax lagaga diyaarinayaa 3 column oo kala ah date, narrate and amount. Dhinaca kalena waa intaa in leego date, narrative and amount. Haddaba aynu journalka ka soo post garayno oo aynu keeno ledger accounts-kan. 1 April 2009 date-ka hoostiisa ayaanu dhigaynaa. Narrative-ka waxa la dhigayaa opposite account-ka ka soo horjeeda si loo garto halkay lacagtani ka timid oo ah capital. Amount-kuna waa $50,000 oo debit side-ka ah. Aynu u nimaadno T-account-ka kale si aynu soo post garayno isagana. Imika waxaynu post garaynay cash at bank, markaa tick baan saari doonaa. Sidoo kale capital-kana tick ayaynu saari doonaa si aynu u post garayno. 1 2009 narrative-kuna wuxuu noqonayaa opposite account-ka ka soo horjeeda magaciisa ayuu yeelanaya oo ah bank. Amount-kuna waxa weeyaan $50,000. Qaybtaasi halkaas ayay ku dhamaatay. Journalka ku xiga ayaynu tagi doonaa. 2 April 2009 debitka waxa inoo yaala purchase oo expense ah. Credit-kana waxa inoo yaala payable oo liability-ga ah. Labadan account-ba waa account cusub, markaa waxay u baahan yihiin in T-account cusub loo sameeyo. Si aynu samayno haddaba waa in aynu abuurno. Wuxuu noqonayaa purchase, debit and credit. Purchase waa expense. Expenses-kuna statement financial statement-ka wuxuu ka galaa statement of comprehensive income oo aynu soo gaabin doono SOC. Statement of comprehensive income. Account-ka kalena wuxuu noqonayaa payable, debit and credit. Payable. Payable-ku wuxuu ka mid yahay liability-ga. Liability-gu financial statement-ka waxay kaga jirtaa statement of financial position oo loo soo gaabiyo SFP. Imika account-nadii waynu abuurnay. Waxaan bilaabi doonaa si aynu soo post garayno. 2 April 2009 narrative-kuna wuxuu noqonayaa opposite account oo ah payable. Amount-kuna waa $5,000. Account-ka kale haddaynu nimaadno 2 April 2009 opposite account wuxuu noqonayaa purchase. Amount-kuna wuxuu noqonayaa $5,000. 3 April 2009 debit waxa inoo yaala cash at bank oo asset ah. Credit-na waxa inoo yaala sales
income bal ay labadaba tick garayno oo tick saarno si aynu boos garayno sidaynu imika soo aragnay debitka waxa inoo yaalay cash at bank oo akoonkaasi hore inoogu sii samaysnaa hadaba aan boos garayno horta akoonka hore inoogu sii samaysnaa saddexdii bishii afraad 2009 amount-kuna waa 6,000 narrative-ku wuxuu noqonayaa akoonkan cash at bank akoonka kale ee opposite-kiisa kusoo jeeda oo ah sales akoonka kale waa salesku hore akoonkaasi inaguma abuurnayn waa in aynu marka hore akoonka saleska abuurnaa sales debit and credit salesku waa income-kuna financial statement-ka wuxuu kaga jiraa statement of comprehensive income oo loo soo gaabiyo SOC saddexdii bishii afraad 2009 narrative-ku wuxuu noqonayaa bank amount-kuna waa 6,000 waxaynu boos garayn doonaa akoonnada ku xiga afartii bishii afraad 2009 debitka waxaa inoo yaalaa payable oo liability ah creditkana waxaa inoo yaalaa cash at bank oo asset ah nasiib wanaag labadan account hore ayay inagu sii samaysnaayeen markaa toos unbayn ugu boos garaynaynaa mid kastaba akawnadoodii si aynu u boos garayno tigta aynu saarno marka ugu horeysa payable-ka afartii bishii afraad 2009 narrative account-kiisuna uu yahay cash at bank waxaa la bixiyay amount dhan $5,000 waxaa labada dhinacba kaaga muuqdaa 5,000 taas waxay ku cadaynaysaa in ay sirood garaynayaan oo aan wax deyn ah lagu lahayn imika transactionka kale waxaa inoo yaalay cash at bank oo credit ah afartii bishii afraad 2009 payable amount-kuna waa 5,000 waxaynu tagi doonaa akoontiyada kale si aynu soo boos garayno shantii bishii afraad 2009 debitka waxaa inoo yaalaa 5 expense creditkana waxaa inoo yaalaa cash at bank haddaba si aynu boos garayno aan tigta saarno marka ugu horeysa waxaa jira account inagu cusub oo aan hore u samaysnayn oo la yidhaahdo rent markaa waa in aynu marka hore aynu abuurnaa amba aynu samaynaa accountka cusub rent debit credit rentku waa expense-kuna financial statement-ka wuxuu ka soo galaa uu kaga jiraa statement of comprehensive income oo loo soo gaabiyo SOC shantii bishii afraad 2009 opposite bank amount 450 oo debit side ah akoonka kale horuu inagu sii samaysnaa waa cash at bank oo credit ah ayuu ahaa dabeeto toos ayuunbaynu gelinana isaga shantii bishii afraad 2009 waa rent amount-kuna waxa weeyaan 450 oo credit ah aynu sii wadno oo aynu soo boos garayno akoonnada intaa inoo hadhay lixdii bishii afraad 2009 debitka waxaa inoo yaalaa receivable oo asset-ka ka mid ah creditkana waxaa inoo yaalaa sales oo income ah aynu tigta saarno si aynu boos garayno labadoodaba account cusub ayaa ku jira oo receivable la yidhaahdo receivable-ka waynu abuuraynaa saleskuna wuu inoo abuurnaa oo marka hore sii sameyn saleska aynu ka horeyno lixdii bishii afraad 2009 opposite narrative-ku wuxuu noqonayaa opposite sales oo noqonayaa receivable amount-kuna waa 6,000 akoonka kale waxaa loo baahan yahay in la abuuro marka hore receivable debit and credit receivable-ku wuxuu ka mid yahay asset-kuna financial statement-ka wuxuu kaga jiraa statement of financial position oo loo soo gaabiyo SFP aynu boos garayno haddaba lixdii bishii afraad 2009 narrative-kuna uu noqonayo
opposite account-ka oo ah saleska amountkuna uu yahay 6,000 oo debit side aynu boosgarayno akoonnada inoo harsan 7 bishii afraad 2009 debit waxay noo yaalay purchase expense credit-kana waxay noo yaalay payable oo liability ah labada account-ba hore ayay nagu samaysnaayeen markaa tigtaynu saaraynaa waynayn boosgaraynayna 7 bishii afraad 2009 akoonka ka soo horjeeda oo noqonaya payable amountkuna waa 7,000 kalena way noqonayaa 7 bishii afraad 2009 oo purchase amountkuna waa 7,000 oo credit akoonnada ugu dambeeya ee aynu boosgarayn doonaa wuxuu noqonayaa 8 bishii afraad 2009 debitka waxay noo yaalaa oo motor vehicles oo asset-ka ah credit-kana waxay noo yaalaa cash at bank oo asset ah labaduba waa asset account bal aynu boosgarayno marka hore tigta inoo saar motor vehiclesku wuxuu noqon doonaa account inagu cusub oo samayn doono waxaan samayn doonaa account-kii cusbaa debit credit account-kuna waa motor vehicles oo asset-ka ka mid ah asset-kuna financial statement-ka wuxuu ka soo galaa statement of financial position oo aynu soo gaabino SFP debitka ayaan dhigi doonaa 7,000 8 bishii afraad 2009 opposite account oo ah cash bank amountka oo ah 7,000 oo debit ah account-ka kalena waa cash oo bana oo hore inoogu sii samaysnaa oon isaga ku boosgaray 8 bishii afraad 2009 motor vehicles amount 7,000 oo credit ah halkaa waxaa inoogu soo dhammaaday boostinkii laga soo boosgaraynayay journaalka ee la keenayay waxaa inoo harsan sidii la iskugu baalas garayn lahaa account kasta debitkiisa iyo creditkiisa haddii alla yidhaahdo waxaanu ku soo qaadan doonaa casharkan ku xiga insha allah